saaxiib yaal kusoo dhawaada muuqaalkeena oon kusoo qaadanayno types of RCC columns noocyada kala duwan ee columnska inagoo markaas ka eegayna lateral load resistivity culayska dhinac uga imaanaya qaabku isaga caabinaya inagoo fiirinayna ayaan kala qaybinayna nooca koowaad waxaa la yidhahdaa braced column waxay la xiriirtaa uu ku leeyahay marka lateral load resisting okay iska caabinta culayska dhinac uga imaanaya culayska dhinac uga imaanayo ama window noqon kara ama earthquake okay so marka dhismaha culayska dhinac uga imaanaya qaabku isaga caabinaya ayay la xiriirtaa waxaan leenahay haddii uu jiro hab okay system ama nidaam okay haddii uu jiro nidaam oo isaga difaacayo culayska dhinaca uga imaanayo oo structurekeena loo soo isticmaalo haddii uu jiro iyadoo markaasi aan loo sii gudbinaynin columnska okay iyadoo markaasi aan la dhahin columnkeena iska caabinayo okay columnka lagama hadlayo system kale oo waxaa jiro awood ilo inuu iska caabiyo culaysyada structurekeena loo soo isticmaalo oo weliba culayskaasi waa lateral ama waa wind ama waa earthquake iyadoo markaasi aan loo baahnayn in culayskaasi uu qaado columnada haddii ay uu jiro nidaam noocaas oo kale columnadaas waxaan dhihi karnaa waxaa loo design karaynaa as a braced column columnadaas waxaa leenahay waa braced columns sababtoo ah waxaa ku jiro structure ama system iska difaacaya culayska dhinaca guriga uu imaado iyadoo markaas columnka aan yani la soo saarin ama aan loo gudbinayn culayskaas for example marka tusaale waxaa kamid ah haddii uu jiro lagu dhaha shear wall okay gurigeena markaa dhisayno waxaa jira shear wall waa system guriga dhexdiisa ku dhex samaysan okay shear wall hadduu jiro shear walliskana maxaa loo design karayaa inuu qaado culays lateral load culayska dhinaca mathalan windiga inuu iska caabiyo soo marka haddii marba shear wall oo jiro columnyada structurekaas ku jira waxaan ku qeexaynaa ama aan u aqoonsanahay inay yihiin braced okay braced column marka waa kan ahaa braced frame okay soo marka columnki waa kan ahaa beamki waa kan ahaa okay columnka kalena waa kan ahaa okay soo markaa rabna anaga braced u noqdo structurekan oo kale u sameynayna okay kan hadda maxaa la systemkan oo kale maxaa lahaa braced hadda hal dhinac waa okay haddaan rabno sidaan oo kalena waa ka dhigi karaa mid kale oo saanan waa u samayn karaa okay soo marka stability uu aad uga qayb qaataa okay oo hadda markii culays la soo saaro shaygaani ma dhaqaaqayo okay oo ma sameynayo displacementiga uu sameynayo wax aad u yar waayo kuleeyahay mujida waa very small waa kaas wax yar waayo okay waa markuu braced ka yahay sababtoo ah kana ku jiro structurekaas ku jiro marka bracedka shear wall ama truss la soo geliyo waxyaalahaas oo kale waa okay nooca labaad waxaa la yiraahdaa unbraced column wuxuu ku dhahay waa opposite waa cagsiga kii hadda aan soo barno oo kale ama definition hadda aan soo barnay oo isla soo fahnay cagsigiisa waa waxaana waaye markii culayska lateralka ah ee dhismaheena la soo saarayo culayska dhinac uga imaanayo wuxuu ku yiri haddii aysan jirin elementyada sida shear wallka oo kale ah ama bracingkii hadda aan soo aragnay oo kale okay oo sida trusska oo kale iyo waxa la midka ah haddaysan jirin waxaa lagu qasban yahay inay unu noqdo shaygaas frame kaliya okay frame ayuu noqonaya oo macnaheedu waxaa laga wadaa beam iyo column bisa meesha jiro structure kale ma yaal noocyadaas oo kale marka waxaan leenahay columnka noocaas oo kale maxaa loo design karaynaa unbraced inuu yahay sawirka aan aragno unbraced markuu yahay marka waa sidaan oo kale columnkii saan uu ahay okay columnkii saan oo kale ayaa ahaa culays loo soo isticmaalo culays marka loo soo isticmaalo there is no a system like braced okay sida braced ku ahaa kale ma jiro markaan okay marka maxaa dhacay waa frame kaliya ma ogtahay frameka marka culayska la saaro waxaa dhacay displacement okay xoogaa shayga inuu barabax sameeyo okay marka waa weyn yahay ku dhahay okay displacementiga meeshaan ka dhacay waa weyn yahay that's why marka in lagu yareeyo macna isbedelka noocan oo kale ah ama shayga dhaqaaqan uu sameynayo kale ama barabaxan uu sameynayo kale ayaa loo isticmaalaa columnyada noocan oo kalena maxaa loo yaqaanaa unbraced column okay ina isla fahnay ayaa rajeynaya saaxiibayaal